Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Asad Diyaano. Ayaan rabaa inaan ka hadlo wadaduu mari lahaa. Maantay qarax ayaa ka dhacay. Al-shabaabkaa sheegtay. Haddaan ugu cusubtihiin subscribe-ka like noo saara. Haddaan ku sii socdo Asad Diyaano. Wadaduu mari lahaa. Xilliguu mari lahaa aan la gaarin. Ayaa gaari qaraxa halkaas ku qarxay. Qaraxiina dad badan ayaa ku dhintay baa la yiri. Al-shabaabkina way sheegteen waxaa la yiri al-shabaabku waxay ka faa'iideystaan markii la kala bedelayo taliyaal way ka faa'iideystaan baa la yiri. Marka al-shabaab ayaa sheegtay Asad Diyaano maanta waa u badbaaday laakiinse meeshaas uu tagay Ilaahay baa og mar walba inuu ku badbaadi doono. Anigu Asad waxaan oran lahaa Asadow ninka lagu adeegsanayo dartiis xilka lagu siiyey Xasan isma taqaanaan waxna iskuma tihiin waa Siciidani dartiis weeye maanta waa badbaaday laakiinse waxaan rabaa inaan ku maqashiiyo nin odaya oo leh ninka aad u tagaysaan oo aad ku qosqosaysaan oo aad ku faraxsantihiin waa ninkii hore idin laayay. Ninkaas odayga hadaladiisa waxaa ka mid ah sida tan dhageysi wacan. aanu noqdo marka koowaad qodobkayga koowaad ee ku saabsanaa magacaabista Asad Diyaano xasan sheekh ma u suurtagelin kartaa burburinta maamulka guunka ah ee beesha daarad ay ku faanto ee Puntland. mayaan leeyahay maya. maxaa yeelay Siciidani wuxuu ahaa kii xilka asagoo uu ka dhacay xasan sheekh maxamuud lacag ku bixinayey, farmaajo lacag ku bixinayey, Fahad Yaasiin lacag ku bixinayey ayaa Siciidani looga adkaan waayay Puntland. Gallan iyo haddii ilaahay ku roon yahay Aaranjaan oo dhan oo isku tegey tin waa ka jiri waayeen Siciidani. waan hubaa in walaalaha Majeerteen iyo Maxamuud Salaaman ay garan karaan duulaanka ku soo wajahan ee raqiista ah kaasoo la doonayo in la raqiis gado lana gaarsiiyo meesha habargeeri la gaarsiiyey. waxaan rabaa inaan idhaahdo reer Puntlandow digdig qabiil haddii macno samaynayso habargedir meesha maanta ay gaartay qabiil gaaraya ma jiro. waxaan idinkula talinayaa annaka habargeedina ayaa gumownaye maamulkeena ilaashada. taas waxay ka dhigan tahay in wax macnaa uusan samay doonin magacaabista Asad Diyaano. wax Puntland uu dhibi kara lama arko. laakiin Asad Diyaano hal mid buu samaynayaa. 9 saac habeenimo ayuu guryaha ugu dhici doonaa kuwo badan oo hawiya, kuwo badan oo habargedira. waxaan rabaa inaad ogaataan dagaalkii habargedir iyo Majeerteen in la isku dhufto ninkii hore uga shaqay jiro Asad Diyaano ahaa jeexidin ninkii ku laayay baabuurtii sacad ku baaba'shay ee aan loo sheegan ayaa saakin Muqdisho looga sabcinayaa doqonay dabkaaba. balse ujeedadu waxay tahay gabadha xasan sheekh maxamuud ee qaraabada la taho qolqolka hubka mako waa salaamaya. halkaan aan ka salaamayaa maadaama ninkaas markuu khamiisiyey tira badnaa wax ku heli waayey ay 2 asbuuc ka hor meherkii dhacay inay maanta soo dedejiso in la magacaabo. waa guul in aad guursatid gabar xasan sheekh maxamuud qaraabo la ah inaad xil ku helaysid. taasna waa guulaha ay gaareen beesha hawiye khaasatan beesha abgaal waa Caysle. Asad waxaad u egtahay nin shamaag ku soo dhexdhacay. waa ninkii dadkeena laayay baa la yiri. ninkaad u qoslaysaan macnihii hadalka odaygan wuxuu u fasirmayaa ninkaas waa ninkii dadkeena laayay yuusan badbaadin. haddee waxay ila tahay dabankan adaa isgashay Siciidani intaas lehe Siciidani iska celiyo meel iska soo saar aad is leedahay oo aad xulufo kala samaysanaysid. waxaa la yiri god walaal haqoodin ku dhici doontida ma ogide. marka
halis ayaa ku jirta. Anigu waxaan ka oran lahaa ciidamo aad isku aamini kartid samayso, saasaan kugula talinayaa. Waa lagu dhaarsan yahay, dad baa kuu dhaarsan oo dhahaya dadkeeni ayuu baabi'iyey oo Maraykan ku dalbada oo al-shabaab ku sheegay. Marka haddaan kasii socdo, maanta waxaa la sheegayaa madaxweynihii 99 ilaa iyo hadda Jabuuti haystay oo la dhaho Soomaaliya horumarkeeda ayuu ka xun yahay oo kala daadiyaa. Ismaaciil Cumar Geelle waxaa la yiri waa uu dhintay, lamana hubo. Faransiiska la geeyaa la yiri, kadibna Jarmal baa haddana dhakhtar loo geeyey. Odayga xaaladiisa waa khatar baa la yiri. Waddanka Jabuutina waxaa la yiri khadkii waa la jaray, ciidamadiina dee waa la diyaariyey. Marka waa la qarinayaa baa la leeyahay odaygu wuu dhintay. Qof dhintayna lama qarin karo. Kolley waa la sheegi doonaa hadduu dhintay iyo hadduu nool yahay, waa la sheegi doonaa. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ahaa ninka keliya ee Soomaaliya lugta kula jira. Xasan Sheekh Maxamuudna marna u yeera, oo waad ogtihiin hadda ka hor wuxuu yiri xasan gabadhayda waxaa bixinaya Muuse Biixi. Intuu u yeeray xasan, Muusaa bixinaya, xasan baa guddoomaya. Saadiq John baana gabadha la siinayaa. Ninka bixinaya Muuse Biixi iyo Khadar Xayd waa un qabiilka kore wadaagaan baa la yiri. Walow Khadar Xayd la dhaho isaaq maaha, reebtay u yihiin. Marka ninka gabadha guddoomayna waa nin abgaal oo Xasan Sheekh Maxamuud. Ninka gabadha loo rabana waa nin abargedir oo Saleebaan. Filinkaas oo dhan wuxuu ahaa xulufaysi buu ahaa. Soomaali lagu kala saarayo, daarood nacayb Xasan Sheekh Maxamuud ku jirta, daarood nacayb ku jirta Ismaaciil Cumar Geelle. Walow hadda la yiri Saadiq John waa laga ceshta gabadhii la sheegayo. wax walba waa iska soo dhammaan doonaan. Odayga hadda kolley waxaa leeyahay waa uu dhintay. hadduu nool yahayna ilaahay caafiyo, hadduu dhintayna waxaan ilaahay ka rajeynaynaa qof khayr qaba inuu Jabuuti la wareego oo Soomaaliya aan faraha la gelin, oo Soomaalidina walaalihiis ay tahay yaqaana. saasaan ilaahay ka rajeynaynaa. ilaahay hawsaal reer Jabuuti madaxweyne fiican. marka barnaamijka halkaas uga baxaynaa. wixii soo kordhan waa arkaynaa oo looga soo sheego madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. kolley qof hadduu dhinto lama oran karo weli waa nool yahay, lama oran karo. barnaamijka halkaas uga baxaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. nabaday.